waxaan ka mid ahay dhalinyarada degmada Dhoqoshay gaar ahaan aqoonyahanka degmada Dhoqoshay ee imika soo baxay waxaan aad uga caawinaynaa xukuumadda Muuse Biixi Cabdi oo garwadeenka ka yahay oo aad uga gaabisay horumarka degmada Dhoqoshay Muuse Biixi waxa ka mid ahaa meeluhu aadka uga soo baxay waxa ka mid ah degmada Dhoqoshay ee codka badan ka helay ballanqaadyada noo qaaday waxba kama hayno haddaan nahay degmada Dhoqoshay waxa kale oo isna aad uga caawinaynaa maamulka gobolka Togdheer gaar ahaan dawladda hoose iyo maayirka degmada Burco maayir Muraad ninka la dhaho Muraad ayaanu aad uga caawinaynaa oo noqday caqabada koowaad ee Dhoqoshay hor fadhida waa ninka weekiina u soo hurdo tagay nasiye salaadiina intuu ka sii quraacdo geedahan Burco ku noqonaya wixii hay'ado ay xaq u lahayd iyo wixii Dhoqoshay xaq u lahayd wuxuu geeyo ninkaasi ku guraya oo nasiye iyo meelo kale fara badan iyo tuulooyin kale hareeraha naga xiga xaqayagii Dhoqoshay uu aasay ninkaasi laakiin waxaan leenahay Ilaahay hana dhaafiyo bil baan nooga hadhay ninka bil buura ayaa nooga hadhay waxaanu soo dooranaa hadii Ilaahay ka dhigo dawlad hoose tayo leh maayir cusub tayo leh hadii Ilaahay naftu noo daayadaan degmada Dhoqoshay waxaanu rajaynaynaa inaanu yeelano tribkan maayirka degmada Burco inaanu yeelano oo xaqayagii soo baxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay ka dhigo gaarigii bileysku wuxuu naga fadhiyay muddo imika 2 sano markii dawladdu kala quusanay ee aan maamul kala quusanay ee wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga kala quusanay waxa noo kiciyay oo aanu masaajidadan uga kacnay degmada Dhoqoshay iyo xoolaha iyo dhaqatadii iyo dadka xoolaha dhaqda ayaa neefneef uga soo qaxayna waa nasiib darro taala dawladda Soomaaliland in baabuurtii lagu adeegayay ammaanka waxay ku taallaa degmadana xuduud bay ku taallaa waxayna xukuuman raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaan joognaa degmada Dhoqoshay waxaan nahay odayaasha degmada Dhoqoshay ayaanu ka mid nahay halkan waxaanu ka caawinaynaa dawladda Soomaaliland siiba xusbiga kulmiye xusbigaas oo ahaa mid aan in badan ku soo taabnay in badan u shaqaynayo yaanu shirin iyo qodaxba ka hadlaynay markii doorashadii uu ku guuleystay u dhameystay odayga imka meesha joogay biixi faruhu naga laafto wixii ballanqaad noo fidiyay iyo wixii qararac noo fidiyay damir kama hayno guriga martida noo qabiya geedkii iskuulka noo qabiya waxa noo de wax kasta oo nagu ballanqaaday waxba kama hayno saligii oo baabaay bileyska ciidankii oo naga yar waxa la koob lama joognaba dawaan iska joogna adeeb xukunkeeda leeyahay taana waxaaba ka sokaysta meesha la yiraahdo degmada Burco maamulka degmada Burco kaasa isagana inuu bixiba naga xun siiba dawladda hoose ninka la yiraahdo Muraad waa ninka nabaabiye degmada madaxa iskaga taagay markuu Burco ka yimaado marna wadada galbeedka naga martuu marna bariga naga martuu mara nima soo maro degmaduna waxa ka tirsantahay degmooyinka uu maamulay ka tirsantahay hay'adihii uu ka dib waxa la yiraahdo noocay doontaan noqotay ka shaqaysaa ma jirto degmooyinka nala mid ah ama tuulooyinka nala mid ah uu caawiyaa uu ka shaqeeyaa uu helay annagu waxaanu ku sameynay garan mayno ninka cunaha nahaye macbaro saabka xitaa nagaga horgudban oo isaga wax alla wax ninka nooga aanu ku sameynana garan mayno dee waxaan leenahay oo dawladda Soomaaliland ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dee wax badan baanu ka tabanaynaa wixii aanu ka tabanaynaa haddii aanan ka helin oo wixii aad noogu ballan qaaday waxaad ku dartay haddii aanan ka helin dee aradka Ilaahay waa bannaan yahay ardullaahi waa xukuumadda sidii loo sameeyay amaan u dhisnay amaan u dooranay waxa waliina soo boqday waxa noo yimaaday waxana eega danta waxay magaalada ka dhiman waxay leedahay midna ma jirto hadii la ka dhigo ilaa intii xukuumadda Dhoqoshay imka xusbiga kulmay wax badan bay magaalada ku dheehnayd ama wax la qaban jirtay Dhoqoshay aan meel kale mari jirin waxa laalay waxa Dhoqoshay ay wax ka qabado Dhoqoshay amadkii hore siilaanyaha noqoto ama imka xukunkan dambe Dhoqoshay deena bixaan noqoto wax loo qabto xusbiga kulmay u qabtayna ma jirin magaaladuna waxa ku suntanay xusbiga kulmay ahayd waxay u qabtayna ma jirin alka magaalada wixii riyaala ka dambeeyay hadii la ka dhigo waxa inoo dhisan ama meelka imka nooga dhisan riyaala noo dhisay waxa ka dambeeyay waxa nooga qabtay ma jiro wasiirkii xirsi xaaji xasan ayaa halka Dhoqoshay nooga dhisay hadii la ka dhigo guriga yar dawladda hoose wax kale waxa nooga dhisay macal xukuumadii hore ee Siilaaya ma jirin laakiin ballanqaadaa jiro waxa noogu ballanqaaday waxay guri martiyeed baan idin dhisaynaa geed baan iskuul ku wareejinaynaa xitaa waxay oran jirtay hadii la ka dhigo ambulance baan keenaynaa waxay markii hore kulmiye ku suntanaan jiray oran jiray Dhoqoshay caan waxaan ku nahay ama hadii hore waxaan ku ballanqaadna ama waxaan Dhoqoshay waa sameeyna waan fulinaa hadii la ka dhigo waayo xukunka arrinka hore wuxuu ka sarcanaa oo noo sarcay hadii la ka dhigo Siilaanyo ina biixinoonkii dib aan qabsaday hawshii hadii la ka dhigo ma qaban waxba kama fulin hadii la ka dhigo sidii baaqis ka tahay
marka waxay la tahay degmadu haddii la ka dhigo wax badan bay kulmiye ku sircaneed wax dhigo u heegneed wax dhige haddii ay waxba ka qaban weydo haddii la ka dhigo arrimaha iyo akinaadka hore ay tiri waxbaan fulinaya ama waxbaan ka qabanaya ay waxba ka qaban weydo ama ay dadka maanta abaaru haystaan haddii wax dhige ay eeg weydo qadarin weydo qiimeyn weydo haddii la ka dhigo waxay la tahay horta marka hore deersa ilaah baa bixiya haddii la ka dhigo dadku ilaahay bay leeyihiin oo ilaahay bay gacmaha hoos dhiganayaan haddii la ka dhigo laakiin dee meeshii halkii ay dan moodaan bay markaa dee wax dhigo duduruganayaan oo iska tagayaan haddii la ka dhigo marka xukunku waayo xukuumaddu wax badan bay u seernayd oo haddii la ka dhigo aan meel kale mari jirin oo haddii la ka dhigo meel mara iyo ka meel kale u badhan lahayd wax dhigo xagad u badhay xagad soo badhay wax loo qabtayna ma jirto marka iminka dee baahiyaadka taagan iminka haddii la ka dhigo iminka maanta dadka reer miyiga ah ee ku isilcaamay meesha waxa xoolahooda kala soo baxaan waayey iyo waxay iibsadaan waxaan leenahay iminka haddii la ka dhigo haddii dadka la danaynayo oo dawladdu dee dan ay dan ka leedahay wax doonaysa in wax ku dhigo tirsato oo ay doonaysa in waxa la tahay cod iyo cadeed labadaba way ka rabtaa haddii la ka dhigay dadka inay hoos u eegto haddii la ka dhigo waayo tuulooyinka iyo degmooyinka ugu dhowna biyo la'aan iyo haraad iyo baa lagu wada baktiyey taasoo imika la isugu wada yimaado la ka dhigo oo haddii la ka biyaha dee imika gabaabsi ah haddaan ilaahay ka soo gaadhin haddii la ka dhigo ilaahay doo shubinay ilaahay ban hoos gacmaha hoos dhigan ilaahay dan ka soo gaadhina dee ciriiri bay ku jirtaa laakiin waxay u baahan tahay daryeel ogaansho in haddii kale soo boqdo in dadka maanta wax alaale wax iibsadaan iyo waxay la soo baxaan ay waayeen la ogaado haddii laga warhayo haddii la ka dhigo xukuumaddu kulliga aad bay fariid u tahay haddii la ka dhigo aan waxba u qabanayn waayo dee xitaa kuwii hore dhaqdhaqaaqoodii hawshooda waxa samayn jireen haddii la ka dhigo dee xitaa istidcaal bay ku soo bixin jireen oo wafdi ahaan bay ku soo bixin ka hawlaha iyo baahiyaasaa jira marka haddii la ka dhigo dadka ayaa markaa dan laga leeyahay loo iman haddii ka dhigo la oran haddii ka dhigo maxaa haysaan mooyaane iminkay dadku wax u baahan iminka iyo wax u baahan wax tara halaga soo ilaahaba wax taray haddii ka dhigo wax loo yimaado waxay qabaan hal la ogaado oo hal la caawiyo haddii la ka dhigo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.